xaflad ballaaran oo abaalmarino lagu guddoonsiinayay arday ku guuleysatay tartanka quraanka kariimka oo ka socday dugsiga Smart muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa maanta lagu qabtay hoolka shirarka ee jaamacadda Burco taasoo ay ka soo qayb galeen maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi arday waalidiin iyo martinsharaf kale oo badan waxaana ugu horreynba xafladaasi ka hadlay Cabdiraxmaan Maxamuud Dhoore oo isagu ka mid ah aasaasiyaasha dugsiga Smart kaasi oo ka sheekeeyay horumarka ballaaran ee dugsiga Smart ku tallaabsaday iyo sida ay uga go'an tahay in ubadka ay u baraan waxbarasho tayeysan oo isugu jirta mid diiniya iyo mid maadiya kullay ka aasaasiyaal ahaan anoo afkooda ku hadlaya anagu waxaanu mar walba u taaganahay oo uu ahaa qorshihii aan iskuulkan ku aasaasnayba in la helo jiilkii berito hogaamin lahaa dalka iyo dadkaba jiilkaasoonu doonayno inaanu ka dhisno maadi iyo diiniba oo insha Allah aan rajeynayno waliba inuu diintu ay xoog badato cilmi aan diin lahaynina sidoo wax u qaban karaa waaba iska yar tahay oo sidayna maanta caalamka oo dhan ka daawanayno faashil baa ku yimi maadigii khaliga ahaa waxyaalaha aanu rabno inaan xoog saarnano waxa kamid ah tartanka quraanka iyo kedis ku saabsan culunta diiniga ah iyo maadigaaba insha Allah marba isteebeen qaadi doona hadda waxaanu hirgelinay inaanu sanad walba bilowno tartankii quraanka ahaa waxa inooga xogay oo inoo bilaabeen oo fikir noola yimi arday kamida kalaasada dugsiga sare oo form 3 ah gudoomiyaha jaamacadda Burco Salebaan Dirir Cabdo isaguna halkaasi ka hadlay waxa weeye qofkii iminka sii dhidido dhiigaagu waa yaraan doona maalinta imtixaanka haddii se iminka aana dadaalin waxay noqonaysaa in laga tago waxa kale iyaguna kulankani ka hadlay qaar ka tirsan maamulayaasha dugsiyada kala gedisan ee gobolka Togdheer waalidiin iyo qaar ka tirsan ardayda dugsiga Smart iyo martinsharaf kale oo badan kuwaas oo dhamaantoodba uga hambaliyay maamulka iyo macallimiinta dugsiga Smart tartankani quraanka kariimka oo isagoo ahaa mid muhiimad gaar ah leh isla markaana ku dhiirigeliyay dugsiyada kale ee gobolka Togdheer inay ku daydaan talaabadani uu qaaday dugsiga Smart ardaydan quraanka iyagana si gaar ah quraanka xafiday tartanka gashayna iyagana si gaaran leeyahay Allah idin siyaadiyo intaad barakteena Allah idin barakeeyo in dambana Ilaahay idin siyaadiye gabagabadiina waxa halkaasi abaalmarino lagu guddoonsiiyay ardaydii ku guuleysatay tartankan quraanka kariimka oo iyagu kor u dhaafayay 50 arday kuwaas oo la siiyay abaalmarino iyo jaayisooyin farxad geliyay Maxamed Caawad Maxamed shabakada caalamiga Wadweyne News Burco.